kulanka ugu adag ee FA Cup-ka Ingiriiska waxa uu dhex marayaa kooxaha la holin layahay ee Liverpool iyo Man City ayaana mar kale isku arkaya kulan aad u xiiso iyo xamaasad badan isla markaana isha lagu wada hayo natiijada ka soo bixi doonta. Manchester City ayaa doonaysa in ay guul muhiim ah ka gaarto dhigeeda, balse Liverpool ayaa ku noqonaysa laf dhuun gashay maadaama ay tahay kooxda ugu adag marka ay ciyaar isaga hor yimaadaan, taas oo ka dhigan in Man City ay wadnaha farta ku hayso. Ciyaarta galabta dhex maraysa labada kooxood ayaana ah mid si gaar ah loo sugayo. Ma Liverpool ayaa afka ciidda u dari doonta Manchester City mise City ayaa wacdaro ku dhigi doonta Liverpool. Afarta kooxood ee isugu soo hartay FA Cup-ka ayaa kala ah Chelsea iyo Crystal Palace iyo kooxahani galabta ballansan ee Manchester City iyo Liverpool.